hooyadu sagaal biloodna waa warshad caloosheedu laba sanana maaragtaan ilmuha yari meel kale wax ka cuni maayo waxay iyadu cunto ayuu la cunayaa saa darteed baa dadka Soomaalidu waxay yiraahdaan waxa umusha u danaba ilmahana u dan hooyadood nooshahay oo aan fursada ka faa'iideysanay wallahi alladhi la ilaha ghayruhu kiini hooyo leh maanta ee aan ka faa'iideysanin maalin buu ka shalaynay كيني هوية لا أما تيني هوية قبطة إيه أنك فائدة سنين مالين بوكا قوم مين هي dhibaatada iyo rafaadka faraha badan ee hooyo marayso qof walba kama qarsoona xanuunada qabanaya uurka hooyada oo ay kugu sido muddo 9 bilooda oo intaasi marna ay jiranayso marna culayska aad ku haysa ay la rafaadsantaa haddaad 40 jirtay iyo haddaad 50 jirtay oo hooyada tagto oo aanay kula joogin agoon baad noqonaysaa nacam agoon baad noqonaysaa waayo ajarkii kuu socday iyo khayrkii iyo ducadii ayaa kaa go'aysa nafaqada hooyadu ay hesho ilmuhu wax ku leeyahay ilmuhu aabba waxba ka cuni maayo laakiin hooyada naasaheedu ilmuhu ku noolaanaya 2 sano oo ku dhan markaas naaskaas hooyada habeenkii ilmaha yar hadduu kacu qayliyo ooyo oo inta nooca ay tahay hooyada garanaysa aabuhu ma garanayo markii ay dhasho kadib inta kaaga tagi mayso dhihi mayso mar hadduu iga banaanka iga yimi hal iga fogeeyo bal way ku soo dhawaysanaysaa oo baalkay ku gashanaysaa adoon wax tabara lahayn itaal lahayn ay maaragto waxay bilaabaysaa inay ku nuujiso habeenkii ma hooyan karto hurdo u dhadhami mayso shanqartii ay maqashaba waxay u malaysaa inaad tahay adigoo soo kacay ama soo baraago ilmaha yar oohin kaliya ayuu ooyayaa laakiin oohinta inta macnay samaynayso aabuhu ma fahmaayo inankuna walaalkiina ma fahmaayo adeerkiina ma fahmaaye hooyada un baa fahmaysa لأن الصفات هو يد إلهي بقليه تبارك وتعالى إني هيسته فرصة وهيسته سو النبي عليه الصلاة والسلام أوير رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه هد اللوبه وقرك عيده لقلو أفك عيده لقلو قفك هو يديس أما أبيس أما متكود ونولي هاي oo aan janno gelin